subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda Risaale Saake kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah Mareykanka duqeyntii 2 saacado gudahooda ka geystay degmada deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Soomaaliya oo karantiishay muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka China iyo wasaaradda caafimaadka oo faahfaahin dheeri ah ka bixisay ciidanka booliiska Dhuusamareeb oo la amray inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo ka hor xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo kulamo la qaatay saraakiisha militariga ay ku sugan degmada Dhobley dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi ka soconaya. Jubbaland oo sheegtay in saameyn weyn uu ku yeeshay anyax badan uu ku degay beeraha iyo wax soo saarka beeraha hoos u dhacay. Puntland oo sheegtay in dacwad ay ku soo oogi doonto dadka la doonta canshuuraha ay ganacsatada soo geliya waxyaabaha maanka dooriya. madaxweynaha dalka Afghanistan oo amray in ciidanka Mareykanka ay ka baxaan dalkaasi iyo waliba wasiir caafimaad oo ka mid ah dalka Britain oo laga helay caabuqa coronavirus. intaas waxay ahaayeen saaxiibayaal wararka subax kuwada ugu waaweynaa faahfaahinta ayaan guda geli doonaa waa 11 bisha Maarso 2020. Mareykanka ayaa duqeyntii labaad ka geystay Shabeellaha Hoose iyo waliba degmooyin ka mid ah gobolkaasi Jubbada Hoose. wax ka yar 30 saacadood gudahooda ayuu tiro duqeyn kala duwan oo ka fuliyay Jubbada Hoose iyo waliba Shabeellaha Hoose iyadoo duqeyntan lala bartilmaameedsaday saldhigyada qarsoon ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka. wararkii ugu dambeeyay qasaaraha duqeyntan ka dhashay Abduqaadir Jakarta ayaa noo soo koobaya. war ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in ciidamada commandos dowladda Soomaaliya oo kaashanaya howlgalka Mareykanka ee Africom ee duqeymo markaasi la beegsadeen xarumo Al-Shabaab ku lahaayeen degmooyinka Jilib, Bu'aale, Saako iyo deegaanka Saagle oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Jubbada Dhexe. saraakiil ka tirsan ciidamada commandos ayaa waxa ay sheegeen in duqeynta oo dhacday xalay lagu burburiyay fariisimo iyo gaadiid ay lahaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. taliyaha guutada 16aad ee commandos xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaale Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa sheegay in duqeynta ay waxay la xoogan ay ka soo gaartay saraakiil iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo dib ka soo sheegi doonaan kana faahfaahin doonaan tirada dhimasho dhaawac ee ka soo gaara Al-Shabaab duqeymaha sida hadalka u dhigay. taliyaha wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in Al-Shabaab haatan ay bilaabeen inay isaga baxaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe cabsi kadib markii ay kordheen weerarada dhanka cirka ah oo ay la beegsanayaan ama uu la beegsanayo Mareykanka. dhinaca kale qoraal ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa waxaa lagu sheegay in mar kale Mareykanka oo duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose lala beegsaday xarumo ay lahaayeen ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeed ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaas oo dhacday shalay gelinkii dambe ay ku dileen 5 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ha yeeshee wax khasaare ah ka soo gaarin dad shacab ah. dhinaca kale Al-Shabaab oo ka hadla duqeynta deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegay in Mareykanka uu duqeyntaas ku dilay 4 qof oo shacab ahaa. warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa baahisay in 4 qof ee shacabka ah ay wateen gaari kuna soo jeedeen dhinaca magaalada Muqdisho ha yeeshee gaarigooda lagu dhuftay 2 gantaal xilli ay marayeen goob lagu magacaabo Ugunji oo ku dhow deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. si kastaba Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa uu kordhiyay duqeymaha uu la beegsanayo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab waxaana toddobaadkan gudihiisa ama saacado gudihiis uu fuliyay duqeymo kala duwan oo gaaray ilaa 3 idina 30 saacadood gudahood 2 duqeyn uu ka fuliyay deegaanka Janaale oo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay la sheegay inay ku xoogan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya waxay karantiishay muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid wadankaasi China. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaana faahfaahin dheeri ah ka bixisay. waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho lagu qabtay nin muwaadin Soomaaliyeed kaas oo la socday diyaaradda Ethiopia Airlines laakiin ka yimid dalka China oo ah meesha marka uu ka dilaacay cudurka coronavirus kaas oo hadda adduunyada sida weyn ugu sii fidaya. ninkan waxaa la sheegay in diyaaradan uu ka soo raacay dalka China dabayaaqadii sanadkii hore uu ka dilaacay caabuqa coronavirus kaas oo dunida si weyn ugu sii faafaya waxaana muwaadin kale loogu shakiyay in uu qabo caabuqa. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya oo war qoraal ah ka soo saartay arrintan ku saabsan safarka muwaadinkan waxay sheegtay in ninkan hadda lagu karantiilayo goob loo diyaariyay in lagu hubiyo caafimaadkiisa.
waa kan agaasimaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo sharaxaya muwaadinka Soomaaliyeed iyo waliba xaaladiisa iyo sida dawladdu ay la tacaalayso. muwaadin Soomaaliyeed oo ka imaaday way dalka China shalay ka soo safray waxaan jeclahay inaan aad dul istaago ma aha suspect wali ma gaarin maadaama uu qofka ka imaaday wadamada cudurrada uu ku dilaacay oo endemic uu ku yahay waxa la maraa habraaca inuu soo dhameysto muddada xilli huuriska cudurka oo laga xaqiijiyo Soomaaliya waxay hore go'aan u gaartay inaysan ka soo safrin dalalka cudurka uu ka dilaacay sida China, Iran iyo Talyaaniga oo uusan imaan qof si toos ah uusan ugu imaan ilaa uu soo dhameysto muddada xilli huuriska cudurka oo 2 toddobaad ka badan qofkaas muwaadinka Soomaaliga waa la holdigareeyay wuxuuna marayaa baaritaan caafimaad waxa la hubinayaa caafimaadkiisa haddii uu ka gudban waxa loo ogolaan doonaa inuu dalkiisa uu galo hadda xaaladiisa caafimaadka ah wax cudur ma qabo temperature-kiisa waa fiican yahay waxyaabaha vital signs-kiisa lagu hubiyana waa qof caafimaad qaba baaritaanada dheeriga ah ama dhiig laga qaadayana waxay noqon doonaa bari iyo wixii ka dambeeya waxa la raacayaa habraaca caalamiga isku gooshka caafimaadka international health regulation dawladda Soomaaliya waxay focus ka saartay dadka ka hortagga prevention iyo protection waxay xiriir la sameystay diyaaradaha iyo shirkadaha diyaaradaha ee dalka caalamiga ah dalka soo gala inaysan soo qaadi karin muwaadin iyo ajnabiga muddadaas xilli huuriska qof ku jiro qofka mar kasta ee ka soo safray xilligaas ee muddadaas xilli huuriska ah ka soo ka yimid maalmo dhow soo safray wuxuu marayaa habraacan ah in la hubiyo caafimaadkiisa oo la karantiyo sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri wasaaradda waxa ay ka codsanaysaa hay'adaha qusayaha inay la xisaabtamaan tallaabada ugu habboon ee ka qaadaan diyaaradan jibisay tilmaamaha ay bixisay dawladda Soomaaliya kaas oo la xiriira arrimaha caafimaadka iyo waliba isku socodka dawladda Soomaaliya ayaa hore qoraal ay soo saartay waxay si ku meel gaar ah u joojisay socdaalka wadamada hadda cudurkan uu ka dilaacay sida China iyo waliba oo meesha cudurkan uu ka dilaacay wadamadu sida weyn hadda u dhibaateenayo oo dalka Talyaaniga qayb ka ah Puntland waxa ay sheegtay inay dacwad ku soo oogi doonto dadka la dhunto canshuuraha iyo sidoo kale ganacsatada waxyaabaha maanka dooriye soo galiya deegaanada Puntland Maxamed Bootaan ayaa dhameystay warkan xeerlaalinta guud ayaa digniin u dirtay ganacsatada Puntland ee la soo degtay badeecooyinka isla markaana iska tira canshuurta sharciga ah ee ku waajibtay oo ay sheegeen inay tahay arintaasi mid ay ku jibinayaan sharciga Puntland xeerlaaliye ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed ayaa carab ku dhuftay inay dhaxda ay xorteen sidii ay isku hor istaagi lahaayeen ganacsatada kala soo degta Puntland badeecooyinka ee baalmara canshuurta wuxuuna sheegay inay ku xadgudbeen dastuurka Puntland u yeelay isla markaana ay ka qaadi doonaan tallaabo ah inay kala wareegaan badeecooyinka ganacsatadaasi wuxuuna sidoo kale digniin u diray ganacsatada keena daraagiska xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu dacwad ku soo oogi doonaa eedeysanayaasha gala faldambiyeedyada aanu kor ku soo sheegnay xafiiska xeerlaalinta guud markuu xeeriyey dembiyada ka dhasha la baxsiga canshuuraha waajibay iyo bixin la'aanteeda inay ka mid yihiin dembiyada ugu waaweyn ee ku xusan xeerarka xafiiska xeerlaalinta guud markuu arkay xadgudubyada lagu xadgudbayo xeerarka dhaqangalka ah ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ay ku habayso miisaaniyadda haddii lagu xadgudbana xadgudubkaas uu ka dhalanayo dembiye ciqaabeed aad u culus haddaba xafiiska xeerlaalinta guud ee dowladda Puntland wuxuu la socodsiinayaa dhammaan ganacsatada haddii badeecadaha ka soo dega furdooyinka deegaanada dowladda Puntland ee lagala baxsado canshuurta ku waajibtay iyadoo lagu xadgudbayo xeerarka wasaaradda maaliyadda waxaan u sheegaynaa ganacsatada in dhammaan badeecadaas ay la wareegaysa dowladda si waafaqsan nidaam ganacsatada baalmarta canshuurta ayaa la ogeyn waxa uu ka bedeli doono digniinta uu jeediyay xeerlaaliye ku-xigeenka Puntland Jubbaland xaggeed haddii aan eegno si dhooble halkaas waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqi ciidan oo wada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuuna la kulmay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan degmada Dhooble ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Madoobe ayaa toddobaadkan gudihiisa gaaray halkaas isagoo halkaas ka bilaabay
dhaqdhaqaaq military uu ku doonayo in uu ku xoojiyo howlgallada. sidoo kale waxaa soconaya qorsho ay ku doonayaan in gobolka jubbada dhexe meelo kamid ah ciidamadu ay la wareegaan. intaanan ka bixin wararka Jubbaland Jubbaland waxa ay sheegtay in qaati ka taagan xayawaanka anyaxa kaasoo ku degay beeraha sidoo kalena hoos u dhigay wax soo saarka dalaga kasoo baxaya deegaanada Jubbaland. wariyana Shukri ayaa soo koobaysa. iyadoo qaybo kamid ah Soomaaliya uu dhibaato ba'an ku hayo ayaxa sidoo kalena ay socdaan dadaalo ku aadan la dagaalanka ayaxa ayaa waxaa ka hadlay arrinka Mahad Muxudiin Maxamed oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland isagoo sheegay in dhawaanba ay deegaanada Jubbaland ka bilaabi doonaan la dagaalanka ayaxa sidoo kalena ay jiraan kooxo loo tababaray la dagaalanka anyaxa ayna sidoo kalena ay ka howlgali doonaan deegaanada Jubbaland iyo deegaano kale dadkana ay ka wacyigelin doonaan. sidoo kale wuxuu sheegay in kooxahaasi agabyadooda uu dhameystiran yahay. wasiirka ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland ayaana sidoo kale waxa uu ka warbixiyay dhibaatada ayaxa uu leeyahay iyo waliba xaalufinta uu u geysto beeraha. waxaan dhawaan ka bilaabaynaa deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland barnaamijkii wacyigelinta oo aan kol hore u soo sheegnay inuu bilaabo doono wacyigelintii la dagaalanka ayaxa oo aan isleeyahay aad u muhiim ugu yahay. tiimamkii waxaan diyaarinay tiimamkii ka howlgeli lahaa deegaanada uu ayaxu maray. waxaan rajeynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan wiiga soo socda inay howlgalaan haddii lahaydno kadibna markay wacyigelintu dhamaatana tiimkii buufinta markii roobku da'o waxaa la filayaa in ayaxi maxaa la yiraahdaa ukumihii uu dhalay oo koronkor ah oo ka fara badan ay soo baxaan. sadaraadeed waxaan ugu talagalnay dadka inaan ka wacyigelino tiim loo tababariyaa jira in buufiska ayaxa iyo marka hore dadka in laga wacyigelino sida looga hor macnaha loola diriiro haddii lahaydno. waxaan rajeynaynaa marka in dhawaan tiimkaas deegaano badan ay ka howlgeli doonaan haddii lahayd. dadku maysan haysan haba yaraatee dadka cayaanka hadda ayax markuu soo degay dadku way eriyeen qaylo hoon gaari jaqafyal isku garaaco wax awood lahayn intaas ay ahayd. waxaa jira deegaano aan maxaa la yiraahdaa dadku aysan baraarugsaneyn oo intaaba aan laga samaynin. waxaan rajeynaynaa tiimkaanu sida maxaa la yiraahdaa waxay sitaan codbaahiyaal waxay dadku u sheegayaan khatarta uu leeyahay. waxay u sheegayaan dadka in maxaa la yiraahdaa ay iska kiciyaan. waxay u sheegayaan waxay marka ugu dambeysana siinayaan haamihii lagu buufinayay ayadoon deegaanka la waxyeelin iyadoo sun deegaanka aan waxyeelin loo isticmaalayo deegaanka uu ku dego meesha uu saacad deganaado waxba kuma reebo. misla intaa waxaa usii dheer wuxuu uga ku reebayaa ukumihii markay ugu horeyso roobku da'ana ayaxii hore uu duulay midaan duulayno lugaha ku soconaya meesha ugu tagaya. codkaas wuxuu u dambeeyay warkii la xiriiray Jubbaland oo sheegtay inay qaati ka taagan yihiin anyaxa hase yeeshee ay bilaabi doonaan dagaalka lala geli doono anyaxa. ugu dambeyn wasiirka caafimaadka wadankaasi Britain waxaa laga helay caabuqa coronavirus kaasoo hadda si weyn ugu sii fidaya wadamada hormaray ee qaaradda Yurub. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi haweeney lagu magacaabo Nida Drona ayaa laga helay caabuqa coronavirus waxaana la sheegay in ayada iskeeda isku karantiishay ayna doonin in ay cudurkani kusii baaho wadankaasi Britain. Drona ayaa sidoo kale ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Conservative-ka ayaa sheegtay inay qaaday dhammaanba tallaabooyinkii loo baahnaa ee lagu taxadirayay cudurka ayna iskarantiishay isla markaana loo sheegay in cudurkan uu sii baahi karo haddii ay ku dhex milanto bulshada. wargeyska caanka ee The Times ayaa ku waramaya Drona oo boqolaal qof ay kula kulantay baarlamaanka toddobaadkii tagay isla markaana ay ka qayb gashay munaasabad uu goobjoog ka ah ra'iisul wadankaasi Boris Johnson. waxaana la sheegayaa in suurtagal ay tahay in cudurkan uu kusii faafo meelo badan oo kamid ah wadankaasi waliba mas'uuliyiin badan laga helo maadaama ay ka qayb gashay munaasabada iyo shirar ka dhacay. waaxda caafimaadka ayaa bilowday in ay dabagalaan dhammaanba dadkii aan xiriirka la sameeyay. waxaana la sheegay in wasaaradda caafimaadka wadankaas ay iyo waliba baaritaan ay ku bilowday xubnaha mas'uuliyiinta baarlamaanka. sidaasi waxaa tiri Drona oo wasiir ku-xigeenka caafimaadka caabuqa laga helay. wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi Britain ayaa qoraal ay soo dhigtay wasiirka caafimaadka wadankaasi Britain qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka wuxuu ku yiri aad ayaan ugu xumahay in ku-xigeenkayga laga helo cudurka.
waxayse saameyn doontaa waax walba oo kamid ah dalkaasi Britain laakiin waa in la karantiilaa wasiirada ayuu yiri wasiirka caafimaadka wadankaasi. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee Britain hadda ay gaarayso 6 qof oo kaliya halka cudurkan uu guud ahaanba uu ka marayo ama saameyntiisa Britain marka loo eego 379 qof oo la diiwaan geliyay. in ka badan 116,000 oo qof ayaa hadda WHO ay sheegtay in cudurkan uu dhintay guud ahaanba marka la fiiriyo caalamka oo asal ahaanba meesha cudurkan uu ka yimid dalkaasi China. in ka badan 4,000 oo qofna waxaa la sheegayaa in weli xaaladoodu ay tahay kuwa aad waa 4,000 oo qofna la sheegay in wadanka China iyo Talyaaniga ay u badan tahay meelaha ay ku dhinteen sida laga soo xogtay hay'adda wararka caafimaadka ee WHO. warbixintan ayaa ugu dambeysay saaxiibil warkii subaxna aad ka dhageysanaysa Radio Risaale magaalada Muqdisho. Ibrahim bulshada Johor oo nagala socotay asal mid la mid intaan ku kulmi doono nabadgelyo.